horta dadku waxyaabaha isla dhaxmareen horta waxa ka horeysa marunba mise waa been inaan u jawaabay kooxda waayaha cusub ama heesteeda hees ku horeysa inaan u jawaabay arintaas waxba kama jiraan anigu uma jawaabin kooxda waayaha cusub iyo heestii ay soo saareen laakiin waxaan soo saaray heesaan anigu kaga hadlay dareenkayga iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan waxa isku soo aada laga yaabaa waqtiyada ay labada heeso soo baxeen laakiin heesteedu hees wax jawaaba ma ahan haddii kale aan u soo galo arinta oo inaan ka baxay waayaha cusub iyo in kale waayaha cusub waa koox aan wada shaqeynay in ka badan 15 sano waqti badan oo aad wanaagsan aan soo qaadanay wanaag badan iyo walaaltinimo badan dhaxmartay bulshada Soomaaliyeed waqti waliba aad iyo aad xaaladooda u adag tahay aanu la qaybsanay dhibaatooyinkii jiray maxaan ku leedahay ka bixitaanka waayaha cusub ma ahan easy aan dhihi karo waan ka baxay waayaha cusub laakiin xaaladan lagu jiro iyo mowqifka ay qaateen qayb ka mid ah waayaha cusub oo ay maxaan ku inay ku dhaleecayaan ama ay ku aflagaadoodaan dawladda Soomaaliya anu mowqifka lama qabin markaan u arkay bulshada Soomaaliyeed sida reactionka ay ka bixiyeen iyaga go'aanka ay qaateen iyagoon qofna kala tashanin waxaan go'aansaday anigu inaan banaanka ka joogo kaligeena ma ahan inta badan kooxda waayaha cusub waa arin aanu كسمنا هويان هدي حتى اللي dislike ولا قتي كومنتيجا أو أفرتكم كنتكم كنكروا ضعفية أو برشيدة أنك نعينسو أو فنانين تك واحدة عينسو أو مجمع وياه عصبة عينسو أو برشيدة يكفل علنس محن وجود شبابنا سو أشخاص إلى هذا قف يجي شباب مشرو معناها هدي اللي يريد dislike ولا قتي وتكنولوجي ولا سمين كره ومعقول وسكبر ولا سمي لكن هذا كورة عتاس dadkan ku caynaya ee ka hadlaya waliba ka bariyay police waabad sameysana magaciisniina waabad aanu jeclay waadna nacsiisana hadda uu balheesta ka saara meesha dadka kule maxaan ugu jawaabnaa oo 60 kor dhaafay adigoo maraya laakiin ma qabo wadankii oo maanta hadeertaan ummadda Soomaaliyeed waxa ka farabadatay qarax baa inta ka dhacay qof baa dhintay hebel baa la dilay meel baa la qarxiyay qabiil hebel weerar ku qaaday dadkii iyagoo intaas oo dhibaato maanta ku dhex jira hadii hadana loogu sii daro intii yareeda rajada ahayd u soo muuqatay in maxaan ku raadayay nin fanaan ah oo Soomaaliyeed oo sharaf iyo maamuus kule oo la jecel yahay intuu u soo labisto in uu aflagaada cad oo bareero u bareero anigu fikrad ahaan way ila foolxuntahay waxaan u danaynayaa ma ahan dawladda Soomaaliyeed waa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadankii oo aan haysanin hub kaleeto hubka kaliya ee haystaan rajada kaliya ee haystaan ay tahay qofka madaxda ah wuxuu u bedeli karay wuxuu bedelo hadii wixii la bedelay oo dhan xaarinta laga dhigo la iftiimiyo loo hanqal taago doorashada bari dhici doonto oo waqti uu ka dhiman yahay anu waxaan u arkaa khalad baan u arkaa waxaan wanaag u arkaa in bulshada la tuso waxa wanaaga ah iyaga oo dhaliisho aysan meesha ka marneen heestu totally waxay ka hadlaysaa rajada maanta uu qaranka Soomaaliya uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed shakhsiyan ay leeyihiin dawladda Soomaaliya waxyaabaha ay qabatay videoga ayaa lagu soo daray laakiin anagu shakhsiyan waxaanu leenahay raja soo iftiintay meel fiican buuna wadanku u socdaa maanta kan madaxda noo ah waana aamino waana adeecno waana garab istaagno dibka Soomaalida haysto waxay tahay madaxweyne marka la doorto 3 bilood ee herato adduunka meel kasta oo tagto xaflad baa ka jirta madaxweynaha lagu taageerayo 6 bilood ka bacdina dadkii xafladda qaban qaabinayba ka soo horjeesanaya dana shakhsiyadeed li ajligeed ma fiiriyaan danta guud qofku chance buu leeyahay 4 sano leeyahay afartiisu markay dhamaato ayaa lagu la xisaabtamaa wixii uu sameeyay laakiin dareenka bulshada Soomaaliyeed waxa ay qabtaa inay dawladdan wax fiican qabatay wanaag fiican sameysay rajadii soo celisay aniga halkan joogo aan ka dareemay rajadii soo celisay aan ka dareemay bulshada Soomaaliyeed oo meel walba joogto waxa ay maanta reaction ka bixinayaan wanaaga ay muujinayaan aan ka dareemay dadka wadankii joogo oo la xiriirna maalin walba la hadalno wanaaga ay muujinayaan marka rajada Soomaaliyeed yaan been laga sheegin yaan dadkeenan qurbaha joogo ummadaas bariiska carreeyaan uga shubin inaan 10 sano dib u celinin hore ha loo socdo intaas ay ka hadlaysaa ha qiimeystaan laakiin dadka shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan hal arrin ma u sheegaya dawladnimo taageer shakhsi ha taageerin shakhsigu maanta uu noo imanaya bari uu naga tagaya mid kale noo imanaya laakiin waxa u baahan inaynu ilaashano waa dawladnimada hala taageero oo bilaato